in qoraalo maaragtay aad hore ka diyaarisay jaamacadda markaad ka qalin jabinaysay adigoo aad ku tilmaantay dadka qaarkoodba inay yihiin dad laga tira badan yahay khaasatan dadka digali marafle qoraalkaasi marka aad fiirisay sidee kula muuqday markii gudaha lagu doortay ra'iisul wasaarnimada runtii qoraalku uu academic waaye marka wax la qorayna waxa la soo reference lagu sameeyaa wixii hore loo soo qoray hadda markii qofka Soomaali wax ka qorayo waliba historic ah waxa weeye population Soomaali inaa sheegtid waa loo baahan yahay hadda anigu kulay nin wax garanayaan ahay 20kii hadda 20kii sano soo marayna inaan ku sii barano aan ka barano waa loo baahan yahay oo aan loo baahnayn dadkan runtii sida xunka ay u fahmeen saadabigu sheegtay mudane ra'iisul wasaare marka haatan qoraalkii isagoo dhamaaday oo hawshii ay dhamaatay maxaa lagu qancin karaa isleedahay marka hadii ay saakadu sida ay tahay adiguna meel aad ka soo xiqatay dadkuna si qaldan ay u fahmeen maxaa lagu qancin karaa hadiyadkaasi waxaa lagu qancin karaa waxay tahay cidii aan aaminsanayn isku qabiil mid cidii aaminsanna waxaan nahay isku qabiil wakaas